waxaynu bilaabaynaa barnaamij taxane ah qaybtiisii afraad oo aynu kaga hadlayno shibanayaasha. Barnaamij cilmi baadhis higaada dhawaqa iyo dhigmada af Soomaaliga. Dhawaqa, dhigmada iyo dhismaha afka hooyo. Waxaynu barnaamijkan kaga hadli doonaa shibanayaasha iyo sidii u abuurmaan iyo xaaladooda. Qaybta afraad ee sixidda dhawaqa shibanayaasha, bogasho wacan iyo kulan kale. Waa shibanayaasha iyo siday u jiraan iyo siday u yimaadaan iyo isbedelada ku yimaada. Dhawaqyada shibanaha ee afka ku jira way ka badan yihiin inta aynu ka naqaan. Iftiimin ballaadhin sida ay u jiraan. Waxa habboon inaynu kala garanno shibanayaasha isku dhex milma ee afka ku jira ee sixidda u baahan. Af Soomaaligu wuxuu afafka la wadaagaa codadka aanay iyagu wadaagin ee qoloba dhan ka isticmaasha ama dhuunta ka soo go'a ama dibna hore ama hanqalaalka. Waad aragtaa in af Soomaaligu uu ka ballaadhayay sida uu isticmaalo codadka shibanayaasha ama codadka dhawaqyada sidoodaba uu yahay afka ugu badan ee leh codad. Haddaynu si qaabaysan uga hadlo ama qaabka cilad bixinta shibanayaasha, waxaynu u kala dhigi doonaa 3 qaab oo midba aynu si u eegi doono. Mar waa unugga ama sida uu abuurmo, mar waa yeedhka markuu dhegtaada ku soo dhacayo, ama waa qormada sida uu u qormayo ama uu qoraalkiisu noqonayo. Unugga haddaynu soo qaadano, ereygu marka uu samaysmayo wuxuu ka samaysmaa 3 hab. Mid waa mid isira oo sidiisa u jira, mid waa mid dheega oo ka yimaada dhawaq hore oo jiray oo isbedelay, midna waa mid humaaga oo aan jirin laakiin lagu dhawaaqo marka 2 cod oo kale la isku xidhayo ama shaqalada sida u badan yihiin. Yeedhka haddaba markaynu ka hadlayno, waxa dhegtaada mar uu ku soo dhacay isagoo caadiya dhawaqa shibanuhu, mar wuxuu yeeshaa hanqalaal yeedh oo dhawaq ha ku lamaan ayaa soo baxa, marna wuxuu qaataa laxaad intii ka badan oo u laxadsama. Qormada haddaba dhawaqa ama ereyga marka uu galo, waxaa jira dhawaqyo siman oo aan islahayn laakiin aynu isku si u akhrino ama isku mid ka dhigno. Dhawaqyo kala xilli ah oo aan isqaban iyaga laftoodu, iyo dhawaqyo sumad lamaan aynu u samayno. Siyaabaha badan ee aynu uga hadlaynaa waa 3 qaab. Unugga shibanaha haddaba haddaynu sida u bilowmo ama u samaysmo dhawaqu. Dhawaqu wuxuu yimaadaa isagoo isira. Waxaad aragtaa inuu ku tusayo in erey kasta ku bilaabmo dhawaq isira ama shibanayaasha marka laga hadlayo. Mar dheeg buu ku yimaadaa oo waa dhawaq isbedelay oo noqday dhawaq shibane, marna humaag oo 2 dhawaq si ay isugu xidhmaan ayuu yimaadaa. Haddaba dhawaqa isirka haddaynu sii faalayno, shibanayaasha isirka. Shibanayaasha isirka ahi waa shibanayaasha ku bilaabma erey kaste. Haddaynu soo qaadano qaybta hore, kuwa ca iyo fa iyo xa iyo ha iyo kha aynu u naqaan, iyagu erey kastoy ku samaysmaan isma bedelaan ama dhawaqyada kale ma dureeyaan ama waxba uma dhimaan. Kuwan labaad waa shibanayaasha dhawaqu ereygu markuu ku bilaabmo sidooda u dhawaaqa si caadiya, hase ahaatee markay dhexda galaan ama xagga dambe ama shaqal ama shibana kale la xidhiidho qaarkood ay isbedelaan. Qaybta horeysa isbedesha waa qaybtan horeysa oo noqonaysa kuwa labanlaabma. Waa 7daas dhawaqyada labanlaabma ee shibanayaasha ee aynu leenahay ee sida saxa u jira. Kuwan ka iyo ta iyagu dhawaqooda isbedela oo dhawaq kale dhawaaqaan marka shaqal ka horeeya ama wax kale la yimaada. Wa'da iyo sa iyo sha iyagu xoog baa gala oo inka xoog badan bay dhawaaqaan markuu shaqal ka horeeya ama ereyga ku dhamaado.
kuwani dhigmadooda ayaa wax iska bedeshaa marka dhawaaqyo kale ka horeeyaan oo dhigmadooda ayaa ka timaada dhawaaqyo kale. kuwan iyaga laftoodu hanqalaadheed ama ha ayaa ku darsanta iyagoo qaarkood ka yimaadaan dhawaaqyo kale oo isbedelay. haddaynu tusaalayaasha ka baxno waxaynu ka hadli karnaa ba iyo ja iyo ya iyo hamsa oo iyaga aynu ka dambaysiinay sababtoo ah way ka duwan yihiin habkaynu uga hadlayna. dhawaqa haddaba dheega. dhawaqa dheega ahi waa dhawaq markiisa hore jiray oo isu bedela dhawaq shibane oo kale. haddaynu soo qaadano ya iyo ya waa laba ya oo kala xoog badan ama kala xoogan markaynu ku dhawaaqayno, sida ereyga waayo oo qadarka ah iyo waayo oo dharaara ah. tusaale haddaynu soo qaadano matalan ereyga cun oo fal ah, waxaynu nidhaa wuu cunaa, baynu raacinaa falalka caadiga u socda, ama cuno ayaynu ku dhawaaqnaa. fal uu la socdo ama u dambeeyo dhawaq shaqal oo fudud. day markaynu nidhaahno waxaynu moodaa inaynu qoran jirnay inay ya ku dhammaanaysa, laakiin ya-du kuma dhammaado ereyadu. waxay yimaadaa shaqal fudud oo i ah ama shaqal culus oo i ah. day shaqal fudud baa u dambeeya, wuu dayaa ayay noqotaa. idii waxay isu rogtaa sidii ya-da. markaa kuwa aynu samaynay midabka buluukiga waa shaqalada fudud. ka shaqalka fududa hadduu laba shaqal dhex galo wuxuu u dhawaaqaa ya fudud sida wuu dayaa ama dayo. shaqal culusi markuu ereyga u dambeeyo sida hay ama falkan ah, hay iyo day way kala xoog badan yihiin markaad ku dhawaaqayso. hay wuu hayaa, waxaad aragtaa in idii haya xoogan isu bedeshay oo wuu hayaa ayaad odhanaysaa ama hayo. tusaale kale haddaynu soo qaadano ereyada dheega ama dhawaaqyada dheega. ul waxaynu had iyo jeer raacinaa marka la garanayo ta, waana sida inta badan aynu raacino dhawaaqyada ama ereyada dhadiga oo ulta ayay noqon lahayd. hal shibane ayaynu iskaga dhignaa samaysma marka labadaasi isdaba galaan oo ah shibanaha sha. sha waa shibane caadiya oo aan xooganayn laakiinse caadiya u dhawaaqa, sida marka uu biloweye uu ka yimaado dheegaas, maaha shibane la xoojinayo. kar haddaad tidhaahdo qof kale markaad falkii ku samaynayso kari ayaad tidhaahdaa, culus ayaynu raacinaa. haddii uu qofku waxaa samaynayo waxaynu dhaha kari ama kariyey, waxaad gelinaysaa ya aan jirin oo isku xidha ida iyo ayda. markaa kariyey ama karshaa. karshaa lafteedu sha'da waxaynu ugu dhawaaqnaa mararka qaar ida culus marka ay shaqal kale sii raaco. waayo waxaynu markaa u arkaynaa inay tahay i fudud oo laba shaqal dhex gashay. waayo ama dharaaro waxaynu arkaynaa inay tahay i xoogan ama culus oo laba shaqal dhex gashay. dhawaq humaaga. dhawaqa humaaga ahi waa dhawaq shibane oo aan jirin laakiin yimaada markay laba shaqal israacaan si ay isugu xidhmaan. haddaynu idhaahno bu hamsada waxaa ka horeeya shaqal fudud. waxaynu haysanaa kale du oo iyadana hamsada uu ka horeeyo shaqal culus. kaa shaqal fudud iyo shaqal culus ayaa ka horeeya. xeerka haddaba dhigayaa wuxuu odhanayaa haddii shaqal fudud hamsada ka horeeyo wuu qormaa waanu dhawaaqa. haddii uu shaqal culusi ka horeeyo wuu dhawaaqaa ma qormo. marka hadday wax kale sii raacaan meesha wuu ka baxaa ka culus. haddaynu soo qaadano cun, wuu cunaa ayaynu nidhaa ama cuno.
falka ku dhamaada matalan shaqal fudud i haddaynu soo qaadano i waxaynu naa wuu i aa waxaynu gelinaa ya aan jirin oo laakiin ka dhex dhawaaqda i'da fudud iyo aada israaca waa ya caadiya oo aan jirin ma qoranto laakiin si ay isugu xidhmaan codkaa samaysmaa inay timaado oo i aa halkii laga odhan lahaa ciya ama iyo hadduu matalan shaqal culusi ugu dambeeyo falka oo kale waxaynu nidhaa wuu kariyaa waxaynu gelinaa ya xoogan oo aan jirin laakiin waxa qormaa i xoogan culus iyo shaqalka raacaya markaa kariyaa ayaynu ugu dhawaanaa si ay labadu isu qabsadaan waa ya humaaga oo aan jirin mana qoranto tusaale kale haddaynu nidhaa du waxaynu nidhi shaqal culus hadduu hamsada ka horeeyo wuu dhawaaqaa ma qormo erey kasta oo ku dhammaada shaqal culus hamsada waa lagu dhawaaqaa laakiin ma qormayo du markaa wuu du aabay noqon leh si ay isu qabsadaan oo ereyku u qaldamin waxaynu gelinaa wa caadiya oo aan jirin mana qoranto wuu du'aa halkay ka ahayd wuu duwaa markaa du'dii sideedii bay u taagnaanaysaa hamsadaa ka baxa ama duwo bu haddaad eegto waa shaqal fudud baa ka horeeya hamsada wuu bu'aa ma ka saarna hamsadii oo sideedaynu ugu dhawaaqnaa ama bu'o ayaynu dhaha wuu kariyaa waxaynu qornaa mararka qaar i'da xoogan inay u dhawaaqdo sha marka waa loo adeegsan karaa dhawaaq ahaan laakiin ma qoranto shacdu yeedhka haddaba shibanaha marka uu yeedhayo waxa uu u qaybsamaa ama codka shibanahu markuu dhegta ku soo dhacayo wuxuu yeeshaa sifooyin kala jaada dhawaq caadi ah marka aynu ka nimaadno kuwa ereygu ku bilowdo marka uu dhexda gala ama shaqalla ka horeeyaan iyo mid hanqalaal yeedha oo ah mid ay ha-i ku lamaantay iyo mid kale oo laxaadsama ama intii ka laxaad bata marka aynu haddaba ka hadlayno qaybta horeysa dhawaq caadiya waxaynu soo qaadan doonaa ta shibanaha ta marka ereygu ku bilowdo si caadiya u dhawaaqdaa waxaynu eegi doonaa inay wax ka horeeyaan gunud haddaad tidhaahdo waxaad arkaysaa inay da ku dhammaatay ereyga hurud da buu isna ku dhammaaday marka aad tidhaa qofkaasi wuu sameeyey wuu guntay u'da iyo da'da isa saarani waa ud fudud baa ka horeysa da'da waxaad arkaysaa inay ta ahayd had iyo jeer sharciga ta'da wuxuu odhanayaa haddii shaqal fudud ka horeeyo da' bay u dhawaaqdaa marka shaqalku ka baxo way soo noqotaa marka gunud uu guntay waad aragtaa inay ka duwantay hurday oo ah hurud oo u'dii cuslayd markay ka baxdo waxay ku tusaysaa in dhawaqa da'da haddii shaqal fudud ka horeeyo ay ta ahayd hadduu shaqal culusi ka horeeyana dhawaqaasi uu da'aha gad markaynu dhaha shaqal fudud baa ka horeeya waxaynu u arkaynaa inay tahay ta haddii aad raaciso matalan dhawaqa kale isna ah gud oo bixiya guro markaynu ablaablaynayno ama aynu xilli garaadaynayno waxaynu dhaha wuu gurtay ra'da iyo ta'du sidooda u kala baxaya haddaynu idhaahno gado oo da dhawaqeedu wuu inoo baxaya laakiin ta ah markay tayr la raaciyo wuu gatay ta'daa dambe waxay keenaysaa inay ta'da hore jiidato oo keento ta laba shaqal dhexdooda ka dhawaaqda oo wuu gatay haddaynu eegno da'da oo gudo waa da shaqal culus baa ka horeeya hadduu raacdo tay wuu gutay waxaad arkaysaa dhawaqa
da'da ama ta'da ee shaqal ka horeeya ee da u wada dhawaaqaya haddii ta ay ka dambayso inay noqonayaan ta'du markaa hadday laba shaqal dhexdooda gasho ta'ta ama da'ta. dhawaq caadi oo kale aynu eegno shibanaha ka marka uu dhexda galo wuxuu iminka samaynayaa shaqal fudud marka uu ka horeeyo durug oo kale. waxaad arkaysaa inaynu ku dhawaaqayno ga. murug waxaynu ku dhawaaqaynaa ga. iyadana waxay ku kala duwan yihiin shaqal fudud iyo shaqal culus ayaa ka horeeya dhawaaqa ga. wuu durkay shaqalkii fududaa markuu ka baxo ga-du ka'bay isu rogaysaa, waxay tusaysaa inay ka ahayd laakiin aynu ga ugu dhawaaqayn. murug wuu murgay, iyadu waxba iskama bedelayaan. waxaynu helaynaa in shaqal fudud haddii uu ka horeeyo dhawaaq ga-a ay ka ahayd oo aanay ga ahayn. sug haddaad tidhaah ama hubi waxaad arkaysaa inay noqonayso shaqal fududoo u ah iyo ka oo u dhawaaqaya sug. sug haddaad tidhaahdo waa shaqal culus iyo ga wada socda ama u joog markaad leedahay. bug haddaad tidhaahdo shaqal fudud baa ga-da ka horeeya waana dhawaaq ka ah. bugtay marka aad raaciso ta'da waxaad arkaysaa in ga-dii weli dhawaqeedu ku jiro iyadoo ka ah. wuu bukay had iyo jeer balalka qaar la raaciyo kii oo soo noqonaya isla dhawaqa u dambeeya oo soo noqonaya markaad ka kala raaciso wuxuu noqonayaa wuu bukay. sidii da'dii iyo ta'da ayay sharcigeeda qaadanaysaa oo suke waa laba ka iyo u ka horeysa. fako waa a iyo laba ka. fakatay waad aragtaa uu fakaday waad aragtaa inay laba ka qormayso. marka ka'du tuke ama tuko waxay ku tusaysaa inay ga-da iyo ka dambaysa ama ka iyo ka dambaysa hadday dhexda galaan ama laba shaqal dhexdooda ay dhawaaqdo ka caadiya. ka'du si kale kuma dhawaaqdo marka ay laba shaqal ku dhex jirto. dhawaq caadi oo isna jira haddaynu eegno dhawaqa ta oo aynu hore uga hadalay markuu shaqal fudud ka horeeya inuu da u dhawaaqo. aynu eegno uumi iyo huuri. tusaale haddaynu soo qaadano ereyga qor. way qortay tay baynu sii raacinaa markaa way qortay. raadiyo taadii waad aragtaa inay wada qormayaan. uumi way uumitay ayay noqon lahayd shaqal fudud oo raacay awgeed da'ba u dhawaaqdaa taadu had iyo jeer way uumiday. waad aragtaa inay da u dhawaaqayso taadii. huuri shaqal culus baa u dambeeya. way huuritay ayaynu odhan layn. ta'dii waxay u dhawaaqaysaa sa marka shaqal culus ka horeeyo. waxaynu helaynaa heer odhanaya ta'da haddii shaqal fudud ka horeeyo ay keli tahay waxay u dhawaaqdaa da. haddii shaqal culus ka horeeyana sa. tus markaad tidhaahdo waxay noqonaysaa shaqal fudud oo sa raacsan. laakiin dus haddaad tidhaa dus sa'dii waxay u dhawaaqaysaa ama u qormaysaa u iyo ta oo ku tusaysa in had iyo jeer ta'du ay u dhawaaqdo sa marka shaqal culus ka horeeyo. hod ama hodan ka dhig. ooda oo shaqal fududa da'du ma jirto laakiin ta baa jirta oo da u dhawaaqaysa. hod shaqal culus baa ka horeeya da baa sideeda u qormaysa. hanqalaalyeedhka haddaba shibanayaasha ay haadu ku lamaan tahay. shibanaha ma haddaynu soo qaadano tun ayaynu nidhaahnaa. waxaynu sawiranaa ama dhegtayna kusoo dhaca na ay ha-i raacsan tahay tun. dhawaq kale oo ku dhow oo cun ah isaga sida ay haada u gelino uma gelino. markaa tun iyo cun waa
kala jaad ama si kale aynu ugu kala dhawaaqnaa inkastoo dad badan dareemin. Qor haddaynu soo qaadano tusaale ahaan wuu qoray ayaynu nidhaahnaa, wuu qoray. haddaad haddaba soo qaadato ma'dii tii ay ku jirtay ee u dhawaaqaysay ha iyo na wada socda sida tun, waxaynu nidhaahnaa wuu tumay. waxaad aragtaa in haadii iyo naadii intaad goysay aad ma u dhawaaqayso, marka na maaha, laakiin waa na iyo ha isku jirta oo ka duwan na'da caadiga oo laba shaqal markay dhex gasho ma'dii caadi ku soo noqonayso. cun wuu cunay. tun waa tum, laakiin maaha dhawaq jiro oo naha, laakiin waa ma'da oo u dhawaaqda ha iyo na isku jirta. cun bay u dhawaaqdaa. haddaad soo qaadato sin ama dhinaca ama misigta, sin si caadi aynu ugu dhawaaqnaa. sin laakiin waxaa isku jijimi, waxaynu ugu dhawaaqnaa na ay ha ay ku jirto. haddaad soo qaadato shibane laxaadsama. waa maxay shibanaha laxaadsama? shibanaha laxaadsama waa marka uu laxaadkiisu ka bato sida caadiga ah loogu dhawaaqi jiray. aynu eegna markaa qaybaha uu kala baxo ama sidaynu u kala saarayno. waa mid xoogsama oo xoog yeesha oo intii ka xoog badan, mid laban laaba oo alamka ama silbalka uu ku dhammaado dib uga bilaabma, iyo hanqalaalyeed laban laaba. waa mid laban laabkiisa ha-i raacsan tahay. aynu eegna haddaba dhawaq xooggan muxuu yahay. dhawaq xooggan waa shibanayaasha xoogga loogu dhawaaqo markay shaqal ka horeeya iyo markay erey ku dhammaadaba. waa shibanayaasha sa, sha iyo wa. tusaale haddaynu soo qaadano shibanaha sa, waxaynu had iyo jeer aragnaa matalan haddaynu soo qaadano ereyga gub, wuu i gubay. i'da iyo gubay waad kala saaraysaa. wuu is gubay. sa'da iyo ga'du isma qabsanayaan. sar haddaynu soo qaadano falka ah wuu i saray. wuu isa saray ayaynu dhahaa isagu markuu isku falayo falkii. labadaas si aanay isu qabsan waxaynu gelinaa a oo afkeenu tilmaamayo inaanay laba sa ka duwanayn in sa keliya hadlayso. marka wuu isaray iyo wuu isaray labadu ma kala dumayaan. markaa si loo kala saaro, maadaama ay saadu xoog u dhawaaqayso xoog leedahay marka shaqal ka dambayso, afkeenu wuxuu samaystay inuu a geliyo. marka wuu isaray iyo wuu isa saray. waad aragtaa in labadaasa la kala jarayo si ay mid waliba gaar ugu dhawaaqdo. waxaa kaleynu ka hadlaynaa shibanayaasha, matalan shibanaha sha isna oo ah mid aynu ku soo qaadanayno. shibanaha sha waxa uu samaysmaa dhawaq caadiya markuu ereyga ku bilowdo. wuxuu kaloo dhawaaqaa dhawaq caadiya marka ay sameeyaan la iyo ta israacda oo laba shaqal dhex gasha. laakiin caadi ahaan hadduu ka dambeeyo dhawaq kale oo shaqala ama uu ku dhammaado ereygu, sha'du bay noqotaa waa la xoojiyaa. iminka dil haddaynu soo qaadano, wuu dil ayaynu dhaha wuu dilay. wa ay diltay way dishay. sha caadiya oo aan xoog lahayn baynu ku dhawaaqnaa. shiil haddaad tidhaahdo, wuu shiilay. haddaad iyada soo qaadato way shiishay. sha caadiya ayaynu ku dhawaaqaynaa la'da iyo taada mar walba. shiish haddaba oo iyadu aynu xoojinno sha'da ay ku dhammaato, wuu shiishay. waad aragtaa inaad xoojinayso sha'da ay ka xoog badan tahay ta caadiga. waa ay shiishtay. wuu shiishay iyo way shiishtay. waad aragtaa inay ka duwan tahay way shiishay oo ah way bislaysay. wuu shiishay waa yoolkiibuu qabsaday. haddaynu eegno dhawaqa kale isna xoogama
ama xoogga yeesha oo ah dhawaqa wa. Wa markaynu ka hadlayno marka ereygu ku bilaabmo dhawaqa wa waxa uu noqdaa dhawaq sidiisa u jiro caadi ah. mar kale wuxuu noqdaa u oo isu bedeshay ama yeelatay dhawaq kaloo raacay. Bu haddaad tidhaahdo aynu tusaalayaashii hore kusoo noqono waxaynu naqaanay in shaqal fudud hadduu ka horeeyo hamsada aanu go-in ee uu dhawaaqo u hadlo. wuu bu-ay, way bu'day. waad aragtaa in hamsadii ay ku jirto mar walba. du markaynu dhahno wuu duway ayaynu dhahnaa. du-aydii ayda aynu raacin lahayn si ay isugu xidhmaan u'da iyo aydu wa caadiya oo dhawaaqaysa ayaa timaada laakiin aan qormaynin oon ku jirin meesha. waa humaag, wa ay duday. waad aragtaa inay hamsadu sideeda u baxayso. tow haddaad tidhaahdo waxa u dambeeya shaqal culus u ah. tow ama waan tabay ama waxaasuu filaya. wuu tabay ayaynu dhahnaa. waxaad arkaysaa in ba ay la socoto ha-i aynu ku dhawaaqayno wuu tabay, way tawday. waad aragtaa in u'dii ay sideedii usoo noqonayso. marka u'du haddii ay shibane raacdo oo shaqal sii raacdo waxay samaysaa wa humaaga oo aan jirin si ay isugu xidhmaan. haddiise ay laba shaqal dhex gasho waxay samaysaa ba ha-i la socoto oo ah wuu tabay. maaha ba caadiya. shibanayaashani waa kuwa raacaya ama ay haddii ku dhammaado dhawaaqyada falku day loo isticmaalo oo tay ma imanayso si ay uga duwanaato dhawaaqa kale ee isbedeli leh. haddaynu soo qaadano shibanayaasha laban laabma. shibanayaasha laban laabma waxaynu ku sheegnaa inay 7 yihiin. ba'du ku jirto, ba'du kuma jirto, way ka duwan tahay oo maaha shibane laban laabma. afartani waa afarta alamkay ku dhammaadaan haddana isla codkay ka bilaabmo. ma'da duumo iyo hami. na'da aynu soo qaadano caano iyo janno. ra'da waa buro iyo carab. la'da waa qalo iyo qalal. waad aragtaa inay shibanihii uu ku dhammaaday alamka cusub ama silibalka cusub uu ka bilaabmayo. waa laban laabka waxaynu u naqaan. dhawaq shibane laban laabma. kuwani kuma yimaadaan si caadi ah ee dhawaaqyo kala duwan ayaa sameeya markay laban laabmayaan. iminka gunud haddaad tidhaa waxaynu dhahaa wuu guntay. ta'baynu raacinaa intaynu da'da bedelo. markaa da'du ta'bay ahayd. way gunuday. ta'dii da'da u dhawaaqaysay shaqal fudud ka horeeyey day kale marka la raaciyo way gunuday ayay noqonaysaa. waxaa imanaysa da laban laaban oo ka timid ta iyo da. hurud haddaad tidhaa wuu hurday. da' bay ahayd meeshaasi, way huruday. da'dii laban laabmayd ayaa imanaysa oo da iyo da ka timaada. waxaad arkaysaa markaa in ta iyo da ama da iyo da ay keenaan laban laab. haddaynu eegno gado waxaynu dhahaa wuu gatay. ta'du markay sii raacdo ta da u dhawaaqaysa dhawaqii ta bay ku soo celisaa. gudo wuu gutay. waad aragtaa hadday ta'du da ka dambayso ama ta da u dhawaaqda inay ka dhigayso ta. marka xeerkana imanaya haddii ta iyo da oo u dhawaaqaya da ay da ka dambayso inay laban laab noqoto. haddii ay ta ka dambaysana inay ta isu rogayaan. waxaa la mid ah xeerka ka'da iyo ga'da dhexdooda ka abuurma. shibanaha laban laabma ee ga
haddaynu soo qaadano ga'da duruq waxaynu dhahaa wuu durkay ka bay isu rogtaa oo tusaysa in shaqalka fudud markuu ga ka horeeyo ay ka ahayd arag shaqal fudud baa ka horeeya ka'da marka aragga ayay noqonaysaa markaynu ga sii raacin murug wuu murugay murugga waad aragtaa in ga marka la sii raaciyo uu laban laabmayo sug oo ah hubi shaqal fudud ayaa ka horeeya ka'da marka ka kale la raaciyo waxay ku soo noqotaa ka caadiya oo sug oo u jooga tuke ama waad oran kartaa oo ku tusaysa in kaadu haddii ay ka dambayso dhawaqiisa ay ka noqonayso caadiya waxaynu haddaba ka hadli doonaa da'da oo ah shibanayaasha laban laabma kuma darna afkeena mana qoro laakiin waxaad arkaysaa inay qaldan tahay haddaad tidhaahdo habar iyo gabadh waa saddex dhawaaq oo ereyadan soo gala habro marka aad jamac ka dhigto waxay imanaysaa habro gabdho ra'dii way baxaysaa dhaabay ku soo noqonaysaa gabdho dha'dii ma baxaysa sideedii bay ugu dhawaaqaysaa shaqalkaa ka baxay ta u horeysa haddaba ra'da caadiga ahi waa ra'da timid ee habar gabar marka aad tidhaahdo waxaynu ku dhawaaqnaa ra'iyaha iswata oo u yeedha gabar gabdho waa dha caadiya marka dha'du marka ay shaqal ka sii horeeyo waxa lahjadaha qaar ama dadka qaar ugu dhawaaqaan ra'iyaha iswata oo aynu u qaadano inay ra' caadiya tahay habar markaad tidhaahdo waxa loogu dhawaaqa habar gabar waad arkaysaa in ha'du ku lamaantay ra' gabadh waa gabadh haddaynu laban laabka ka hadalno fadhi waxaad arkaysaa inay laban laabantahay laakiin haddaynu dhaha fadhi waad ka tegaysaa dhadhankii oo waxaad arkaysaa inaad erey kale ku dhawaaqday dhiidhi bay isu rogaysaa dhadhan bay isu rogaysaa dhudhun bay isu rogaysaa oo ka duwan waxaad arkaysaa in shibanaha dha uu laban laabmo uu yahay ku jiro kuwa laban laabma dhawaqa laban laabma isna haddaynu dib ugu noqono shibanaha dha waxaad arkaysaa in marka aad ku dhawaaqayso dha'da ay dadka qaar ugu dhawaaqayaan ha iyo ra' iswadata jiir haddaynu dha oo dooliga ah jiir ayaynu toos ku dhawaaqnaa ra' caadi aynu ku dhawaaqnaa gar haddaynu dha oo ah gar ayaynu ugu dhawaaqnaa oo ah garta haddaynu idhaahno jiidh waxay dadka qaar ugu dhawaaqaan jiir oo ah ha iyo ra' iswadata laakiin aan ra' caadi ahayn haddaad tidhaahdo gadh oo gadhka ah waxay dadka qaar ugu dhawaaqaan gar waad aragtaa inay kala duwan yihiin gar iyo gadh gar waa ra' caadi ah oo gar iyo gar baa loo akhriyaa gadh laakiin gar iyo dadka qaar ugu dhawaaqa wuu haray waxaad arkaysaa inay ra'da ha'i ku jirto way hartay waxay isu beddeshaa way hartay ama waxaa loo dhawaaqaa way hartay waad arkaysaa inay ra' ha'i ku jirto oo taadu ay caadi uga dhawaaqayso wuu gaaray way gaadhay ama way gaadhtay oo dha'du markay laban laab noqonayso waxay ka timaadaa dha iyo ta israacay oo sameeyey laban laabka waa sida kuwii hore oo kale way gaartay
هبا dadka qaar ugu dhawaaqaan iyo raa'is wata wana lahjad jirta daynu soo qaadano laada iyo maada iyo ra'da waxaan qalaaliyeedka markay yeeshaan markay laamayaan waxaanu raacinaa ha iyo iyaga oo u dhawaaqaya laab cun haddaad soo qaadato naaba ku dhammaaday waanu cunnay si caadi aad ugu dhawaaqaysaa labana tun haddaad tidhaa ama tun oo ha iyo na iswadata ay ku jiraan oo tun aynu u naqaano waanu tunnay waxaad arkaysaa in na iyo laba ha iyo laba na oo iswata oo laakiin ereygu uu yahay waanu tunnay qal haddaad tidhaahdo waanu qallay ayaynu dhahaa markaa qallay ha iyo laba la ayaynu ugu dhawaaqnaa laakiin waanu qalnay weeyaan ereygu waa lahjad ahaan baynu isticmaalnaa laakiin waxa saxa waanu qalnay qor ra' weeyaan u dambaysa waanu qorray waxaad arkaysaa in ha aad raacinayso iyo laba ra' laakiin ay tahay waanu qornay oo sida saxa ay tahay ama laakiin tani ay liisin ama lahjad noqonayso waanu qorray haddaad eegto shibanaha xaaladda gaar waa kuwii aanu ka reebnay markii hore ba'da haddaynu soo qaadano shibanaha ba waxau leeyahay 3 hab ama 3 nooc oo uu samaysmo ama 3 dhawaaqo kala jaada haddaynu soo qaadano tusaale oo shibanaha ba erey kasta oo ku bilaabma ba waa shibana caadi oo ba dibi waxaanu eegaynaa markuu dhexda galo iyo ubbo iyo tabo 3 dhawaaqo kala jaada oo aan islahayn maxaa keenay haddaba 3 dhawaaq dab haddaad tidhaahdo wuu dabay waxaad ku dhawaaqaysaa ba caadiya markay dhexda gasho cab waxaad arkaysaa inaad marka horeba xoog u yeeshay ba'da oo aanay cab ahayne ay cab tahay cab markaad ay raaciso wuu cabbay ba'dii xooganayd baa dhawaaqaysa oo aad arkaysaa inay dhegta kusoo dhacaysa laakiin waxaanu u qorannaa 2 ba mase aha wax jirta laanno sharci tusaya ma jiro ay halkii la raacinayay inaad midna pay raaciso midna ay iyagoo isku mid ah markaa dab iyo cab marka hore ayay ereygu shibanaha uu ku dhammaanaya uu kala jaad yahay marka ba waxa weeyaan shibana jira oo ka bilowda shaqal ka horeeyo ama ereygu ku dhammaan karo laakiin aan sida ba'da caadiga ah aan ka bilaabin ereyada taw wuu tabay marka ba iyo ha baynu ugu dhawaaqnaa wada socda wuu tabay marka udu hadday 2 shaqal u dhaxayso ba iyo ha bay keentayo 3 nooc ee ba'da aynu u kala saarnay ayaa jira oo aan islahayn oo midba gaar u dhawaaqdo marka ba iyo ba dad eegto dab waa ba caadiya wuu dabay sideedaad ugu dhawaaqaysa adoon xoog siinaynin cab marka horeba waad aragtaa inaad xoog u yeelayso oo aanay la mid ahayn dab wuu cabbay taasi waxay ku tusaysaa in marka aynu dhawaaqa xoojinayno shaqal ka sii dambeeyo ay markeeda hore ahayd oo aynu sharciga raacayno naxwaha taw haddaad tidhaahdo ama wuu tabay 2 shaqal markay udu dhex gasho ba iyaha ayaa samaysma oo ah wuu tabay waad aragtaa inaanay 2 nooc ee kale la mid ahayn habow oo la mida iyaduna wuu habaabay ayaynu dhahaa ba iyaha iswata ayaynu ku dhawaaqnaa marka 3 nooc ayaa jira ee ba'da oo ba iyo ba haddaynu soo qaadano dhawaaqyada kale ee jira ee xaaladda gaar aynu ka dhignay waxaa jira ya iyo hamsa ya-du sideedaba marka ereygu bilaabmo way ku bilaabataa laakiin maaha wax
uu ka yimaada ya marka ay dhaafto intaa. hamsadu waa ka mid shibanayaasha, inkastoo aynu funkar u qoranno ama kolanka, waxay u baahan tahay inay dhawaaqyada sumadahooda ka mid ah alfaabeetka ay ka tirsanaato. haddaba maxay ku kala duwan yihiin? ya-da halka ay gasho hamsadu ma gasho. ya-da ereyadu way ku bilaabmaan laakiin kuma dhammaadaan. day haddaynu soo qaadanno, i fudud ayaa meesha jaalay, laakiin marka shaqalka la sii raaco dayaa ayay samaysaa ya caadiya oo sida waayo. hay ya maaha ku dhammaatay, waa shaqal culus. marka ay shaqal culus kala dhex galo oo i ahay laba shaqal, ya xoogan ayuu dhawaaqa, marka waayo. gu ereygu wuu ku dhammaan karaa dhawaaqiisu. gu yaal, waxaynu nidhi hadduu shaqal culus ka horeeyo gu ma qormo, laakiin ya-du shaqal culus way ka daba qormi kartaa sida gu yaal. marka gu yaal ma nidhaahno, laakiin gu yaal. go yaal, shaqalka fudud ya-du kama daba qoranto, laakiin hamsadu way ku dhammaataa waanay ka daba qorantaa. markaa go yaal. wiyil, i'da culus ya-du way ka daba qorantaa sida wiyil. hamsada hadday rogto shaqal culus way ka daba dhawaaqdaa, kama daba qoranto. way duday, waynu ka saarnay hamsadii. bu way bu'day, hamsadii kamaynaan saarin oo shaqal fudud baa ka horeeya. taasi waxay tusaysaa haddaynu sumad qura wada siino inuu midba meel ka galayo ereyga oo aanay isu khaldamayn. waxaynu eegaynaa shibanaha xaaladda gaar. haddaynu soo qaadanno ya-da iyo hamsada oo aynu sumad isku mid ah wada siin karno, maadaama midba ereyga uu meel ka galo. yar wuu ku bilaabmaa ya-da laakiin ma gasho. ya-du ereyga uguma dambayso. day waxaa matala shaqal fudud baa u dambayn kara. hay ya-du uguma dambayn karto erey, wuu hayaa dhexda way ka dhawaaqi kartaa, laakiin waxaa sameeya ya-da culus, i'da culus. gu shibanaha hamsadu wuu ka daba dhawaaqaa ama wuu ku dhammaadaa ereygu, laakiin ma galo marka uu shaqal culus ka dambeeyo, ma qormo. go waad aragtaa, go-yaal way isku daba qormayaan iyadoo ta hore ay hamsada tahay, ta dambena ya-da. wiyil shaqalada way ka daba qormi kartaa. du way duday. bu way bu'day. waad aragtaa inay hamsada iyo ya-du ay wadaagi karaan sawirkan sumadda kelida. aynu soo qaadanno dhawaaqyada aynu labada sumadood siino. waxaynu dhahnaa matalan shibanaha iyo qormada iyo yeedhka magaca iyo ereyga. haddaynu shac soo qaadanno waxaynu ugu dhawaaqnaa u qorannaa shac, innaguna aynu ugu yeedhna, laakiin marka lagu dhawaaqayo siin iyo ha ayay kala noqonayaan sida shax. kha'da oo aynu soo tusnay ka'du inay in badan soo gasho dhawaaqyada oo ga iyo ka iyo lamalaab ay intaba galayso, waxaa boon inaynu ka dubno oo maadaama ay qa'da isu dhow yihiin ama ereyada kala amahdaan dhawaaqyada, inay qa iyo ha aynu qaafiyaha u qoranno kha'da oo sida khole. haddii aad ha'da ka tagto aanay dhib keenayn qa'da marka loogu dhawaaqayo. qa'dii oo qaafa iyaduna sumadeeda magaceeduna yahay qaaf oo halaq oo kale. waxaa jira shibanaha ja. shibanaha ja isagu sidiisa
wuxuu yeeshaa dhawaaqyo kala duwan oo badan. Shibanaha haddaynu eegno janno, xajiin, jaajuur iyo xaj waa ja. Deg haddaynu dhahno qof kale ku sameeya falkii, haddaynu dhaha degi ayaynu dhaha i culus baynu raacinaa, waxay isu rogtaa deji, laba ja bay dhawaaqdaa oo deji. haddaad tidhaa daaq, daaqi, markaad tidhaa daaji bay noqotaa, ta iyo ja iswata ayaynu ku dhawaaqnaa. qalal haddaad tidhaahdo qallali, qallaji ayaynu dhahnaa, la iyo ja iswata ayaynu ku dhawaaqnaa. waad aragtaa in jaadu intaasoo dhawaaqay samaysa iyana oo kala duwan oo ka yimaada dhawaaqyo aan iyada ahayn. alfabeetka haddaba sida ay caalamku u isticmaalaan waa sumado jira, mid waliba magac u gaara ay leedahay, si gaara u xidhiidhsan, isma bedelaan. waad aragtaa afka carabiga, afka ruushka, afka ingiriisiga iyo laatiinka. innaga afka soomaaliga dhawaqa aynu taxnaa maaha alfabeet. waad aragtaa inaynaan alfabeet lahayn, laakiin dhawaqii intaynu taxno sidaynu doonno isu dabagelino ayaynu dhaha waa alfabeet. u fiirso sawirkan, waad aragtaa inaynu shacabro isku daray oo qaarba meel dhignay oo sumada 2 iyo 3 jeerba qorayno. taasina waa khalad maaha. dhawaqyada markaynu tirinayno waad ku adeegan kartaa, laakiin maaha alfabeet. waxaynu u baahanay alfabeet saxa oo afka soomaaligu leeyahay. af hooyo alfabeetka. alfabeetka haddaba aynu u baahannahay inaynu adeegsanaa waa sida kan oo kale. waxaynu leenahay 5 shaqal oo fudud iyo 4 culus. waxa kale aynu leenahay shibanayaal aynu u adeegsanay inay ka turjumaan kuwii aynu ka tagnay. iminka dhar oo kale, zeeda ayaynu isticmaalnay. fadhi, zeeda oo dha'da ah iyo ta'dii raacday oo laban laab ka dhigaysa. khal, qa iyo haa baynu u akhrisan karnaa. okhole, qa iyo kha. ya-da oo marka ay ku bilaabmayso aynu sumada u qaadan karno oo yeel oo kale. hamsada oo halka ay gasho aanay ya-du gelin oo iyadana aynu la isticmaali karno sida go iyo gu. ba'da oo aynu u qaadan karno beeda oo ah laban laabka taynu u haysano oo ah dhawaq jira oo aynaan inagu ku darsan. dhigmada afkeenna ma saxnaa? waa su-aasha aynu u baahnay inaynu isweydiino. haddaad eegto shaqalada waa 9, 5 fudud iyo 4 culus, sida deg iyo deg, tag iyo deg, wuu tagay iyo wuu degay, hel, cir iyo hir, qod iyo qod, dul iyo dul. waad aragtaa inaanay isku mid ahayn ay kala duwan yihiin. waxaynu u baahannahay inaynu helo alfabeet saxa oo aynu si wanaagsan u adeegsano oo ku jaangoyno dhawaaqyada afkeenna ku jira. haddaynu kan qaadano 3 dhawaaq ee casaan ku marsan yahay ama sumadahaasi, waxaynu u qaadan karnaa peeda oo ah cab oo kale, feeda oo ya-da iyo hamsadu ay wadaagi karaan, iyo zeeda oo aynu dhacda u adeegsan karno maadaama aynu dhacdo hadday laban laabanto 4 xaraf baa la qorayaa. taasina ay khalatay. waxaynoo diidayaa ma jiraan inaynu kuwan adeegsano maadaama aynaan kuwa kaleba lahayn. sabab aynu uga tagno dhawaaqyadan ama sumadahan kelikelida ah oo aynu qaar laba isu saaran aynu u qorannana waa khalad. waxaynu ku gabagabaynaynaa intaa shibanayaashii iyo falanqayntoodii. ammaano eebe iyo kulan kale. waad mahadsantihiin.